السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب سود وهذا أصحابته وحين سعودي عشرة دني امتحانها أو إنه كان ليني برشة حساب سوسك سري خاصة جبت الكيسات تركمترية هذا أصحابي ما أنتوا حنسلف فيرين دونا example كيس دحاد أو إنه كان ليني compound أنجليزكا يعني compound أنجليزكا وإحنا بنقول شيء وحويان وتريك أين استعمالي كرنو أما استعمالي دونو هدي حق لها نلسيو أي سنة هاي سبيشال أنجليزكيس فيديو هوريي oo ka boona galiska waxaan kaga soo xisaabinay aynu ka soo hadalnay qaabka loo xisaabiyo loo raadiyo xagal hadii lagu siiyo tusaale ahaan oo kale 705 oo kale iyadoo lagu weydiinayo example labaad waxaan kaga soo hadalnay waxa lagu siinayaa expanded formula of fitness waxa lagu leeyahay xagasha asalkeeda ay ka timaaday shay example saddexaad waxaan ku fiirin doonaa dhamaantood wax ka duwan waxa sameyn doonaa wax weeyaan wax equation oo waxa lagu siinayo ma jiro haddana waxa la rabaa inaynu waxyaalaheena inta anagu aynu farsameysano waxna loo diro aynu meesha kala soo baxno example kana waxa uu kamid yahay waxyaalaha ka saacidi doona ina si fiican oo qoto dheer aad u sifaado trigonometriga haddaba ay isla fiirino example keena haddaba example kana wuxuu leeyahay given that theta waxay la macno tahay 5 oo loo qaybiyay 12 tan beta ay la macno tahay -4/3 such theta is an acute angle and beta is an obtuse angle. Without using calculator, find sin theta plus beta. يعني وحو كير واحد هيستاب وكيري حقل theta أو 5 oo loo qaybiyay 12 fiiri maanta 5 oo loo qaybiyay 12 sidoo kale waxa haystaab وكيري tan fiiri sin cos waxa lagu masintaas tan beta waxa lagu haystaaba loo yiri -4 oo loo qaybiyay 3 hada waxa lagu yiri xagasha koowaad ee theta waxa soo ka soo qaadaa baa la yiri inay tahay acute angle macnaheedu waan garanaynaa waa xagal 9 ka yar weeyaan acute angle macnaheedu waa xagal 9 ka yar xagasha koowaad marka waxa la yiraahday waa acute betana waxa la yiraahday waa obtuse angle macnaheedu waa maxay waa xagal 9 ka weyn 180 ka yar inta u dhaxaysa baa la rabaa inay dhaco yani waa maxay 9 way ka weyn tahay 180 way ka dhahay xagal meelaha dhacaysa hadaba aniga waxa la yidhi sin theta oo lagu daray beta hadaba intaan shaqo kale aan qaban fiidiyogan mar rabo inaan uga shaqeeyo sin theta oo lagu daray intaas waxaan rabaa laakiinse inaan sin iyo cos iyo tan aan la soo baxo kadib xaglahooda marka aan la soo baxo adiga waxa la yiraahdo aad xisaabiso aad calculate kareyso adiga ayaa laga rabaa inaad waxa dhow kadibna intaas oo dhan waxa weeyaan daawade adiga isku day inaad ka shaqeyso laakiin inta hore ayaan rabaa inaan fiidiyogaygu nuxurka aan u duubayo waa inta hore weeyaan hadaba asxaabiga gadaal waxaan ugu laabanaynaa unit circle-keena waa ku sheegay unit circle waxa uu kamid yahay man ku yiri waxyaalaha ugu muhiimsan oo maskaxdeena u furid kara trigonometriga marka sida unit circle-kayga aan qorto dhinaca kan waa garanayaa ilaa 9 weeyaan dhinaca waa garanayaa ilaa 180 weeyaan dhinacna waa 270 dhinacana wax la yiraahdaa waa 360 hadaba aniga ta koowaad maxaa la yiri fiiri 5 oo loo qaybiyay 12 xagashaas ila dhacdo acute fiiri hadaba acute macnaheedu waxa weeyaan position kan buu dhacaysa xagashaas fiiri obtuse macnaheedu waa maxay position kan bay dhacaysa xagashaas macna sababtoo acute 9 weeyaan xagal 9 ka yar macna intaasay dhacaysa obtuse-na waa 9 bay ka weyn tahay 180 waa ka dhahay waxa ay dhacaysaa waaxda labaad bay dhacaysaa hadaba intaas ayaan oo garanaya aynu fiirino marka xagashana maxaa la yiraahdaa fiiri 5 oo loo qaybiyay 12 fiiri 5 oo loo qaybiyay 12 halkaas marka waxa weeyaan waxaan sawirnayaa triangle baynu sawirnaynaa fiiri saddex xagal baan ka sawirtay xagashaydu maadaama 9 ay ka yadhay tusaale theta halkaas baan u dhigtay marka theta halka marka aan u dhigto labada tan 5 oo loo qaybay 12na waxa ay noqonaysaa waxa weeye 5 oo loo qaybiyay 12 5 oo loo qaybiyay 12 hadaba halkaas marka aan haysato kan ma la soo bixi karaa saddex xagalkaas geeska kan ma la soo bixi karaa
ها waa la soo bixi karaa oo formulada rabaan kula soo bixi karaa halkan marka qaacidada hadda taa ay dabaqaysa fiir opposite-na waan haystaa taana waan haystaa halkaas sin baa iga soo bixi karta marka hadaba sinteedu maxay la macno tahay fiir waxaan leeyahay sin theta waxay la macno tahay opposite-kayga oo ah 5 loo qaybiyay 12 sin theta waxay la dhigantaa 5 oo loo qaybiyay 12 0.416 very much 0.416 hadaba inverse hadaan geliyo aan dhaho shift sign 0.416 theta waxa ay soo baxaysa 24.6 markaan one decimal place ku soo koobo hadaba xagasha halkaas maxaan soo helay 24.6 baan soo helay muhiimadda aan u raadinay aniga xagashaas waxa weeye inaan line-ka kula soo baxo line kan baan rabaa in aan kula soo baxo kadibna waxaan raadinayaa marka line-kaygaan raadinayaa oo line-ka fiiri halkan x baan u qaadanayaa maxaan ku soo raadin karaa fiir inta option aan ku soo raadin karo adiguna daawada isku day saddexdaba inaad ku soo raadiso isku jawaab ay ku soo baxaan cos baan ku raadin karaa tan baan ku raadin karaa waxa kale oo ku raadin karaa Pythagoras theorem baan ku raadin karaa saddexdaba waan ku raadin karaa hadaba anigu cos baan ku raadinayaa adigana waa maxay daawade waxaad isku daydaa tan inaad ku raadiso haddana aad ku raadiso Pythagoras theorem-keeda hadaba cos theta maxay la macno tahay يعني adjacent oo loo qaybiyo hypotenuse-ka adjacent-ga waa x maadaama xagasheeda halkan ay dhacday hypotenuse-keeguna waxa la yiraahdaa waa 12 xagasheeda waan haystaa waa imisa cos 24.6 waxay la macno tahay x oo loo qaybiyay 12 hadaba halkaas fiiri cos 24.6 waxa kale oo qiimo kale ku bedelan karaa waa maxay inaa 9 inta soo qaato aan ka jiro 24.6 oo aan dhaho 9 oo laga jaray 24.6 waxay soo baxaya 65.4 kadibna halka aan dhaho sin 65.4 waxay la macno tahay x qaabka rabaan isticmaali karaa laakiin maxaa dhiga diidiye kana dhiga diidaya yani waa maxay trigonometriga xogta u leedahay waa inaad isku bedbedeli kartaa si kasta waa inaad ugu ciyaari kartaa hadaba waxaan raadinayaa marka cos 24.6 baan raadinayaa waxay la macno tahay 0.909 waxay la macno tahay x oo loo qaybiyay 12 x oo loo qaybiyay 12 kadibna cross multiplication markaan isticmaalo x halkan aan ku soo dhameystiro x waxay la macno tahay 0.909 times 12 waxay iga soo baxaya 10.9 adiga taqriiban yani waa maxay rounding baa iska sameyn doonaa rounding markaan sameeyno 11 yani halka waxa inoo soo baxay 11 fiiri 10.9 yani waa maxay waa 11 at least waxa waa maxay waxa leenahay waa 11 kadibna shaqada aan rabay ujeedada aan rabay waan gaaray ujeedada aan rabnahay waan gaaray extra iga tirtir xagashatana qiimaheeda oo rababa waan baahnay kooytaan hadaba halkaasi waxa weeyaan aan sayn ka soo dhiraandirno marka yani waa maxay sin theta waxay la macno tahay baan leeyahay sin theta maxaa lagu helay opposite oo loo qaybiyay 5 oo loo qaybiyay 12 cos theta maxay la macno tahay 11 oo loo qaybiyay 12 tan theta maxay la macno tahay opposite oo loo qaybiyay so hilmaamin ka to opposite oo loo qaybiyay adjacent hilmaamin waligaas opposite-kayga mee waa kan oo loo qaybiyay adjacent-kayga 5 oo loo qaybiyay 11 hadaba inta asxaabi waxa weeyaan waynu la soo baxnay sidoo kale maxaa isticmaali karaa inta adigu aan isticmaalin
با واحد استعمالي كدا لباتن هي أفر دبع إيه لح حقلا ونو هيسنا تانا ولا صباح هذا بس سؤال كوباد تيتا سوان سو حليه تنكلا نتجا يا مكبير تنكلا بانو تجا تنكلا محل ويرهدي تان وحلا ذا بيته وحلا معنا تان بين سور ولو قيبي صدقي طبعا marka waxa is weydiinaya xagasheedana wax le obtuse macnaheedu waa maxay waa inaan ka fikiri karaa tusaale ahaan oo kale haddii aan saa u sawiro ka waran bahalkayga waa maxay saa haddaan u sawiro ka waran inaa saa dhaho obtuse macnaha triangle halkan mar kasta dhacaya oo aan dhaho xagashaydii beeta halkaasaan dhigtay fiiri negative-ka meeshuu ka imanayo waan kuu sheegaya yani x dhinacana waa positive x dhinacana waa maxay waa negative سأل أجلجت محن سمينا يا مركب ما دام إن عنا قتب أي تهاي أو تانا إن تانا محن ويا الجري أو بسيط كي محن ويا فور الجاز تيجي قنوا محي تري ساسا كسورتي معناه إذا هذا مركب ترجمة يوا إن عندها كان هو بوستيف تقرب وصعدا وإذا تاني وحويان وبوستيف وإذا تاني وحويان والنيجاتيف يعني وا محي فور هو بوستيف لكن إكسترا محي تهاي الجاز تيجي محي تهاي نيجاتيف معناه waxay ahayd tani sida tan bay ka timaaday 4 oo loo qaybiyay minus 3 taas hal rabi hadaba la minuska maxaa la sameeyay kor baa la isgeeyay labaduba waa isku midkii hada soo qodho waa isku midkii labaduba isku natiijo ayaa soo baxaya hadaba hadda saddex xagalkaygina waan soo dhig fiiri saddex xagalkayga marka waxaan rabaa in aan xaglahayga marka kala soo baxo meesha tan xaglahayga in aynu ka soo dhigaan dirsano meesha horta beeta waa inaan la soo baxaa xagashayda بيتا وين على صباح وحلا يا مركب تان بانا يستان وحلا يا هاي تان بيتا وحاي لما عنتها هاي أبسط كيو أبرو لو قيبي صدق فيري كدنا وحلا يا هاي فورو لو قيبي تري وإمسا و 1.33 sidaasi wax la yiraahdaa hadhoona tan inverse waa raadin karaa sidoo kale maxaa raadin kara oo maanta iga fudud inaan isticmaalo Pythagoras baan isticmaalaya sidaan oo kala soo bixi karaa anigu waxba is hawlin Pythagoras baan kala soo bixi karaaba yani waa maxay qaab kasta aad u gasho fiiri x aan qaato marka oo Pythagoras ka muxuu ahaa sida oo square garaysan waxay la macno tahay a oo square garaysan oo lagu daray b oo square garaysan sida waa x oo square garaysan waxay la macno tahay 4 oo square garaysan oo lagu daray 3 oo square garaysan iyada ay fudud maanta x oo square garaysan waxay la macno tahay 16 oo lagu daray 9 x oo square garaysan waxay la macno tahay 25 x waxay la macno tahay 5 daqiiqad yani trigonometry waa maxay waa trig hadba qaabka ku fudud weyga ku fudud waa inaynu mar kasta aynu ku dabaqnaa kadibna maanta x waan soo helay Pythagoras baan ku soo xaliyay tii hore fiiri Pythagoras igu adkaan lahayd root ay ma baxdeen laakiin maadaama root ay iga baxayso waa ina Pythagoras aan ku xaliyaa kana waan la soo baxnay oo maxay la soo baxnay kan 5 bayna la soo baxnay kadibna xagasha hadda raadinaya xagasha maxaan ku raadinaa same by full same ba kula soo baxayaaba adoo ko suraadi tan ku raadi taartu ku raadi xagasha aad tii ku soo baxdo weeyaan xagashaad hadaba aan raadino marka xagasha tusaale ahaan oo kale maxaan ku raadiyaa cos baan ku raadiyo sababtoo ah ujeedadan ka leeyahay ma raba inaan ku tuso cos baan ku raadiyo xagasha waxaan leeyahay marka cos theta waxay la macno tahay cos theta waxay la macno tahay asalkeeda cos theta maxaa lagu heli jiray adjacent-ga loo qaybiyay hypotenuse-ka yani 3 oo loo qaybiyay hypotenuse-kayga 5 cos theta waxay la macno tahay 3 oo loo qaybiyay 0.6 hadaba halka marka waxa raba inaan ku sheego weliga hadii ay saa ahaan lahayd fiiri inta wax ka shaqeyso ay saa kaaga noqoto oo loo dhashay 3 u qaybi 1.6 tusaale 5 oo loo qaybiyo 3 maxaa ku soo baxay 1.667 ay saa ku soo bixi lahayd calculator-ka si kasta aad u geliso waa khalad lambarka ugu wareey cos-ku ay gaadho waa 1 laakiin 1.1 hadaa geliso 1.0001 math error ku soo qoray sababtoo cos-ku wax ka badan ma balaha marka iska ilaali marka waxyaalo waxa jira mugtay marka ba agran marka khalad inay ku jidho waa inay sii ogaataa 3 marka 5 u qaybinay waa 0.6 kadib dhinac kasta waxa weeyaan cos inverse baan dhigayaa theta waxay la macno tahay cos inverse 0.6 kadibna waxa leeyahay shift cos 0.6
waxay soo baxay 53.1 degree haddaba meesha aan rabaa meesha tan weeyaan aan muddo fara badan aan u soo jabaynay oo inaynu gaarno meesha tan weeyaan xagasha aan haysto maanta maxay tahay waa 53 waaxda aynu joognana fiiri halka macquul ma tahay ku qoran karaa 53.1 degree baan la soo baxay xagashi baan soo helay ma oran karaa haddii aad sidaas samayso waxa ku qabanaya xeera kan fiiri maxay tiri xagashaydu waa inay u dhaxaysaa 180 ilaa 90 53 baa la soo baxday maxaynu samayn karnaa waa inaynu raadinaa xagal u dhaxaysa 90 ka weyn 180 na u dhaxaysa maxaa sameynaya qiimahaaga kan meesha ku yaala baa qaadaysaa 180 baa ka jaraysaa 180 laga jaray 53.1 baan sameynaya 180 laga jaray 53.1 maxay soo haraya 126.9 degree hadaba xagashaydi maanta waatan xagashaydi 53 ma ahane xagasha 53 ma ahane xagasha aan raadinayo waa 126.9 degree waxa laga yaabaa inay isweydiiso saddex xagal halkana waa 90 isku dar yani waa maxay waa zoom ka soo qaad sababtoo ah asalkeenu xagasheenu waa 53 laakiin se waaxda ay dhacday anagoo ictimaadinayna xeerkeeda ilaalinayna baan waxaan leenahay 126.9 degree weeyaan haddaba haddana xagashaydii waan la soo helay xagashaydii laftigeedina waan soo helay haddaba fiir halka markaa marayso hana hilmaamin all students take calculus oo meesha tan saynta kaliya positive ka ah kuwa ka odhanna waa negative iyadana hilmaamin haddaba asxaabi waxaan filayaa inaynu isla garanay qaabka xagasha adiga hadii sax lagu siiyo hadii loo dhaho acute ka gal sameeyso geeska kuwa har dhinaca saddexaad la soo bax ama sida dhan ha la soo bixin Pythagoras kula soo bax sin kula soo bax hadba wixii adigu aad awoodo kula soo bax tan anigu isticmaalaya sin baan xagashi kula soo helay xagashi waa la soo baxay saddexdii dhinacna waa la soo baxay tan waa maxay maadaama ii fududahay inaan Pythagoras isticmaalo Pythagoras ba ku soo baxay xeerkaygina waxa weeyaan 53 ba xagashi ii soo baxday laakiin waaxda aan haysto maadaama ay tahay 90 ilaa 180 aan qaaday 53.1 baan ka jaray 126.9 baa soo hadhay halkana marka waxa weeyaan aan qoro xogta aan ka haysto kadib hadduu daawade adigu waxaad isku daydaa inaad intaasi soo dhiraandhiso haddaba sin maxay la macno tahay sin theta waxay la macno tahay opposite loo qaybiyay hypotenuse yani waa maxay opposite kaygu waa imisa 4 loo qaybiyay 5 cos maxay la macno tahay iyada laftigeeda costeen waa imisa costeen waxay la mid noqonaysaa adjacent-ga loo qaybiyay 3 loo qaybiyay 5 tan theta-na waxay la macno tahay tan theta-na waxay la macno tahay opposite-kayga oo 4 loo qaybiyay 3 laakiin calaamadda fiiri sheekh calaamadda fiiri waa negative akasan saaray cos to soo laabo maxaa lagu helaa adjacent maadaama ay leedahay waa negative laakiin se sin-tu waa positive iska ilaali sin-tu waa positive sababtoo ah sin calaamadaas meel kale xigmadda ka dambeysana waa maxay calaamadaas weeyaan maadaama dhinaca sameynaysa ay tahay haddaba intaa markaa soo heshay ama waxaad isticmaali kartaa 126.9 haddaba daawade waxaad isku daydaa marka adiga kastamay teetana waa soo helnay beetana waa haysanaa meelaha xaglaha ku badbadalo xeerkii koowaad ee waxa la yiraahdaa compound Ingiriiska intaad ku dabaqdo kadib waxa sameynaysaa xeeladahaasi jawaabtooda saxda ah soo raadi haddaba asxaabi waxaan filayaa inaynu isla garanay muhiimadeedu aniga kan ma ahayn muhiimadeedu waxa weeyaan haddii sidaasi intii laga qariyo lagu dhaho la soo bax inaynu la soo bixi karno maxaynu sameynaysaa marka koowaad xagashaadu meesha ay dhacayso fiirso acute baa leeyahay xaga saa u taago 5 xeerka skate kasta xal la soo bax xagash soo saar waan la soo baxay kana waa maxay labadaas geeskaas aan la soo bax xagashaan la soo bax xagalahaygii baan qortay kadib ilaahaysa ku bedelnaya tusaalita koowaad oo kale maxay la macnatay sayno loo qaybiyay tan waa imisa 126.9 oo lagu daray
لباتن هي أفر دبع له سدا ودقون أما سدا سلام بهؤلاء رقمين با وأنت حقلها كبوده كون استعمال أو واحد استعمال ليس 4 over 5 لو داري شن over لبيتون كون استعمال سدا بقى كون استعمال محاك وضع أنا كده سمرك لما قاب أو حلين كذا لما قاب تنوه الرسالة جواب تدرس مع جاري معيو لكن واحد ربعينا يبيشوا كسيو يعني ما هنت إنا كسيو هنت جا كده من واحد اللي يلعبه هذا وقت كسي عم بقاضه هدو إلهي قدره حقله إني مركب مدو حياة لبعتني أفر لبيع لح من بقول لبعتني يو لح لبيع سجال بهاي حقله هو استعمالي كرا أو تدفيري ساين فيري أمر قوات نعيد إذا لم بس كترتيبه سؤال مهمة باهم بيان حسوا علين هذا واحد سمعني ستصالي حقلي قلت تصالي ما قرنا يا لباتني أفر دبيع اللي حامد يسوال من اللي بعد بقول لباتني اللي دبيع سجال تصالي دنعية ذيني كسوقات تصالي for example waxa ii soo baxay kii hadda wuxuu ahaa tusaale afar oo loo qaybiyo 11 tusaale waa tusaale cos teetana waxay la macno tahay 3 oo loo qaybiyay 11 ma waa halkaas ma kala soo baxo baba kamba halkaas ay ugu qorayeen baartoon afwan horta wax leedahay xagasha waan soo baxay teeta waan la soo baxay teeta waxa ii soo baxday 100 ما لباتن إيوه أفر دبع لح بيتنا وحيسو بحدي بقول لباتن لح دبع سقال هالكاس ساين تيتا وحيسو بحدي شنو لو قيبيي لبيه طبعا كوس تيتا وحيسو بحي سامركان ساندو هالكاس تيتا أنا هالكاس شن لبيه طبعا هذا كوي طبعا بحيسو بحدي كوي طبعا لو قيبيي لابو تان تيتا وحيسو بحدي إيدنا وبالصيد ساعة فيديوز شنو لو قيبيي كوي طبعا هذا كان واحد ليرادا ساين بيتا وحيسو بحدي هذا كان وحي محانا يستا في رقصة بقال صبحي كرا هذا كان محوات تري هذا كان وافور هذا كان شنبا يسو بحدي ساين بيتا وحي لمعنى تاهي وبالصيد لو قيبيي 4 و 5 كوستيت أنا وحي لمعنى تاهي 3 over 5 تابعتنا وحي لمعنى تاهي 4 over 3 هذا أصحاب أنت أصبرك يكون صوب حدي حاجة هو استعمالي كرا فيه حاجة هو استعمالي كرا كنا هو استعمالي كرا هذا حاجة ما دام أنا كالكوليتر كو أضوء هيستوى شقين كذا لكن امتحانك بلا كالكوليتر هذه نقاط كو أنا استعمالية ومعنا ذي وحنا ليها سين براكت تيتا أنت اللي أنت مركز سين تيتا من سين تيتا واصل معنا ذي وما هي شنو لو قيبيي لبيتون لو داري سين بيتا واتن فيري معناه هذا أفر لو قيبية شنيتو كتب ساو حلي سيدا ما رتي وحلي فيري تلمات صالح كوس تيتا ماذا واتن محن قادنا يا كوي طبعا أو لو قيبية لبيتون لو داري تنادو لو در لغا جري تنا لو در لغا جري 3 over 5 تان واتن شنو لو قيبيي كوي طبعا لو در ولا لغا جري افر لو قيبيي 3 يعني mid kasta keeda siinaysa hana hilmaamin koostu meeshda waxa ay ka noqonaysaa calaamadaheedii negative taayidna ha hilmaamin marka asxaabi waxa weeyaan kuwan adigu ma xasameynaysaa marka xeerarkii waafaji kadibna waxa weeyaan isku day inaad ka shaqeyso hadaba asxaabi casharkeenu maanta wuxuu ka saabsanaa kaliya hadii inta la siiyo si ay inta aynu qaabka aanu la soo bixi lahayn xaglaheena iyo dhinacyadeena qaabka aanu la soo bixi lahayn hadaba asxaabi waxaan filayaa kaana waa isla fahanay hadaba asxaabi inta aynu kulmi doono fiidiyowga xiga oo aynu ka hadli doono haduu ilaahay qadar double English-ka waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan